بسم الله الرحمن الرحيم كسعته تليها عيدن كإلالنت ديجان كحمر تليها قيبت جودة بوليس كقبل كبنادر قدوميها دقمدة حمر وينه أوك أقاسمها واحدة سوقية دولده سي حمر أقاسمها واحدة جدتك يبلعدها أقاسمها جودة نظافة بلعسو علنتا أقاسمها جودة هولها جود قريقان كجود دولده سي حمر xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soo baxay 12 bisha labaad ee sanadka 1980 markuu arkay sharciga maamulada iyo degmooyinka gobolka Banaadir ee number 116 soo baxay 6 bish 8 2013 markuu arkay xeerka 48 bis ee soo baxay 1 bish 9 1981 ee habka maamulka iyo qaybinta dhulka gobolka Banaadir markuu arkay sharciga number 10 soo baxay 17 bisha 12 1980 markuu arkay muhiimadda ay leedahay in degmada Xamar Weyne ay noqoto degmo tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir markuu tixgeliyay soo jeedinta gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir wuxuu soo saaray xeerkan qodobka koobaad maamulka gobolka Banaadir isagoo ka shaqeynaya ammaanka horumarka bulshada iyo bilicda caasimadda Muqdisho kana hortagaya ciriiriga wadooyinka iyo nadaafad darida wuxuu go'aamiyay in degmada Xamar Weyne ay noqoto degmo tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir qodobka labaad dhammaan shacabka ku ganacsada wadooyinka iyo mashabiyeediyada laamiyada degmada Xamar Weyne waxaa la farayaa inay baneeyaan goobahaas waxaa la kansalay ama la baabi'iyay dukumentiyada dawladda hoose ee bixisay ee saameynta ku yeelan kara ama caqabado u keeni kara shaqada ka socota degmada Xamar Weyne nooc kasta oo ay yihiin warqadahaas goobaha dadka laga kiciyay looma adeegsan karo dano ama howlo aan dan guud ahayn shaqadani waxaa loo fulinayaa si waafaqsan farqadaha 6, 7 iyo 8 ee qaybta B qodobka 6 ee xeerka 49 bis soo baxay 27 bisha 1 1980 qodobka 3 dhamaystirka wixii ka dhiman xeerkani fulintiisa waxa uu xil saaran qaybta howlaha guud oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir.